wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta koowaad ee sheekada dikaan jacayl oo ah sheeko dareen jacayla xambaarsan. sheekada dikaan jacayl waxaa qoray weriyaha caanka ah daahir cabdulle calasow waxayna ku bilaabanaysaa لا عاود ودا ليابك waxay ahayd xilli dagaaladii sokeeye burbur iyo colaaddii laga dhexlay ay dadka reer muqdisho ka soo kabanayeen ma jirin internet laakiin agagaarka suuqa bakaaro ayaa laga furay xarumo isgaarsiin oo dadka saf dheer ay u geli jireen. nasrudiin waa 21 jir ku nool dalka Sweden gaar ahaan caasimadda Stockholm balse ku dhashay magaalada Muqdisho. waxaa bilihii ugu dambeeyeyba maskaxdiisii hareeyey xusuus huwan xiiso walaalnimo oo uu naftiisa ku weydiinayo gabadh ay yaraantii isku iskuul, isku kalaas, isku dugsi, isku xaafad iyo xulafaba ahaayeen. carruurtana si qaasa ay isaga jeclaayeen maadaama ciyaarta iyo sheekada ay isugu bixi jirtay. nasrudiin waxa uu la xidhiiray walaalkiis oo si weyn u yaqiinay gabadha ku taagan laabtiisa ee Nimco Faarax, wuxuuna ka codsaday inuu baadi goobo oo nolosheeda uga soo warramo haddiiba ay ka badbaaday rasaastii dagaalada sokeeye ee Muqdisho lagu riiqmay. codsiga nasrudiin ku doonayo Nimco Faarax kuma jirin damac saaxiibtinimo iyo xiriir guurtoona, waxaase xusuustiisa ku weyn in Nimco Faarax ay ahayd gabadh ay soo wada mareen dhallinyaranimo lama ilaawaana, laakiin nasiib darro uusan war iyo wacaal u haynin tan iyo markii uu Muqdisho ka dhoofay sannadii 1988 xilligaasi oo nasrudiin waxbarasho uu u tagay Stockholm. adduunyadu sidii malaab hadday wada macaanta oo maanku siduu raabo ama wuxuu miliilico laba maris ma seegteen murugadu ma taalin muranba maylaatiin nasrudiin walaalkiis naasir inkastoo maskaxdiisa ay ka guuxaysay tuhun la xidhiiray inuu nasrudiin caashaqsan yahay Nimco Faarax, haddana si dhib yar ayay gabdho ay isyaqaaneen ugu geeyeen Nimco Faarax, wuxuuna salaan iyo bariidin gaaban kadib u sharaxay in walaalkii nasrudiin uu jacayl u qabo warkeeda iyo wacaalkeeda nolol ama geeri. kaftan iyo kala warqaadasho dabadeed wuxuu naasir guddoonsiiyey Nimco Faarax taleefannadii gacanta iyo guriga ee walaalkiis nasrudiin. Nimco Faarax oo farxad iyo fakar u dhaxaysa
maskaxdeedana ay hareeyeen mawjado shucaac su'aalo badan oo ay iska weydiinayso. farriintan lama filaanka ah ee kaga timid nasrudiin waxay ujeeddo hoose xambaarsan tahay ayaa ilaa ilinka gurigeeda waxay si tabaryari ka muuqato ku sagootisay naasir oo la dhashay nasrudiin. naasir ma dareemin in nimco dhidid badan jirkeeda hareeyey markii uu akhbaarta nasrudiin u sheegay, laakiin markii ay ka soo laabatay ayay keligeed faqdaysatay. wagarey adduunyo ileen la isma waayo. wiilkii nasrudiin miyaa walaalkii ka codsaday inuu warkayga iyo wacaalkayga baafiyo? wax jira allaa og. waxaase isweyddiin badan waxa jira ee aan ka warrayn. waxaase iiga sii daran waddada aan u marayo, lacagtii aan ku wici lahaa, iyo haddii laga fursan waayo sida aan waalidkayga ku weyddiin lahaa. ayay iskula hadashay nimco faarax oo hoos u fooraarta, xusuusteedana ay hor keentay muuqaalkii barisamaadka ee suuradda nasrudiin. hilow dartiis habeenkii hurdo badan ma ladin nimco, wuxuuna waaga u dilaacay iyadoo ku guda jirta gorfaynta cidda ay ka helayso lacagtii ay ku wici lahayd nasrudiin. koob qaxwaa oo dheer ayay qaadatay, waxayna mar uu haaf marayay ka dhex aragtay gabadh ay saaxiibbo ahaayeen in ay sheekada u sharaxdo kana qaaddo lacagta teleefonka nasrudiin lagu wacayo. labalabo iyo shaki ma gelin ee iyadoo aan qaxwada dhammaysan ayay horay kobaha ka ilatay, waxayna 23 daqiiqo oo lug ah ku gaartay gurigii saaxiibteed oo ku yiil degmada howlwadaag. nimco saaxiibteed markii ay sheekada u kala dhigtay waxay la soo booday, warba adaa leh, maxaad sugee maad wacdidhee? lacagtii aan ku wici lahaa ayaan kuugu imid, ayay nimco kula kaftantay saaxiibteed. 100,000 oo shilin Soomaaliya dhabdheh ee bood oo la hadal hadda ayay nimco saaxiibteed Simoon ugu laab qaboojisay. saaxiib, hadda meeqa saac ayay u tahay Sweden? maxaan kala horraynaa horta wakhtiga? ayay nimco weydiisay saaxiibteed Simoon. Sweden iyo arli kale saacaddiisa ma aqaaneh, iska wac. haddii lagaa qabtana arag, haddaan lagaa qabanna arag, ama haddaad doonto weydii wiilasha jooga xarunta teleefoonka Olombik, ayay Simoon ugu jawaab celisay nimco. nimco
sheeko kale siima gelin durba waxay u huleeshay xaruntii teleefonka ee ku tiil jidka koowaad ee suuqa bakaaro ee isla degmada howlwadaag xilli saacadda swiden ay ahayd 6 subaxnimo laakiin ay muqdisho u ahayd 8 subaxnimo ayay garaacday nimco teleefonkii nasrudiin oo macaansanaya hurdada ayaa durbadiiba qabtay teleefonka hallow ma nasrudiin baa waa nimco ayay ku tiraabtay haa abbaayo waa nasrudiin ee ii warran ayuu ugu jawaabay farxad iyo ooyin ayaa la isku jiibiyey waaw alla ma nooshahay intee joogtaa waxaa u bilowday sheekadii lagu yaqiin wejiyaal isxasuustay la soco qaybta labaad ee sheekadeenna imtixaanaha ah ee dikaan jacayl sheekada dikaan jacayl waxaa qoray oo ay maskaxdiisa ka soo maaxatay abwaan wariye daahir cabdulla calasow anigoo ah ismaaciil xaaji shakeeti ayaa idiin soo jeedinayay tan iyo inta aynu qaybta labaad dib hawada ugu kulmeenno sidaa iyo nabadgelyo ismaqal dambe oo xiise leh لكبيالا بيا